سلام كدب ماشان هذا الشيء كما جرتو عاو حفلات waxay ahayd oo lagu soo xiray ama gunaanadkii loo xafladeynayay guushii iyo go'aamadii lagu gaaray galmudug madaxda qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed isugu timid oo go'aamada lagu qaatay ay oo lagu xafladeynay bay ahayd wax kale kama jiraan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda qaranka madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka dhammaan mas'uuliyiintii mansab kasta iyo maamuus kasta ilahay halka isugu timid go'aamada dhaxalgalka Soomaali ay sugaysay waqtiga la joogo aad loo sugayay ku xurmeeyay inay gaaraan go'aamo reer galmudug Soomaalina ku xurmeeyay oo tanazulay oo safray waqtiga u bixiyay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waxaan leenahay intii aad shaqooyinkii iyo xafiisadii ka maqnaydeen in ka muhiimsan baad qabateen in ka weyn baad qabateen tii gaargaarka ahayd midii guud baa la qabtay runtii ammaan iyo sharaf baan idin haynaa haddaan nahay reer galmudug Soomaali oo dhan waa idin haysaa intii talada la isugu yimid qayb ka soo qaadatay soo aastay soo aqbashay aad iyo aad runtii waxaan la ilaaweyn reer galmudug ilaaweyn reer Soomaali ilaaweyn baad gasheen waxaan rabaa inaan si gaar u tilmaamo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markii dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay isu yimaadeen dalbadeen codsadeen soo aqbalay loo yimid taladana dardar geliyay inaan iraahdo madaxdii qaranka waa maasantii waxaan rabaa madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka inaan si gaar ugu mahadceliyo runtii waxaan halkaa rabaa inaan ka xuso isumaadka aasaaskiisii si gaar inaan u xuso ayagoo dhammaantood wada ammaanan badoor ka qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo aasaaskiisa arrintaas ka soo qayb galay runtii madaxweyne Saciid wuxuu muujiyay sadogtihiin kulankeenii gaalkacyo inaan hore u soconno la tashado odayayn badan buu muujiyay waxaan hubaa inay sidaas runtii aasku ku yimid madaxweynayaasha saaxiibada walaalaheen ana waxay geysteen taladii aasaaskiidu gaalkacyo ka soo bilowday tii ugu habbooneed oo ah in galmudug la isugu yimaado saaxiibada madaxweynayaasha sharafta leh marti sharafta dhammaan mas'uuliyiinta halkaas isugu timid waa mahadsantihiin gogoshiina iyo gurigiinina waad joogtaan taladii dambe iyo madashii dambena waa noo mudaysan tahay reer galmudugna waa u mahadcelinayaa sida iyo sharafta aad muujiseen oo ku soo dhaweyseen madaxdii qaranka runtii waxaan ammaan gaar ah Soomaali idinku haysaa idinkoon diyaar garow iyo waqti midna la idin sida aad u soo dhaweyseen madaxdii qaranka halka ka sii wada gogoshii waa idin taal gogoshii Soomaaliyeed gurigiinay taal madaxdii iyo mas'uuliyiintii sharafta badneed oo inta idinku maamuustayna oo idinka aqbashayna gogoshiina ay yimaadaan oo gurigiina ku tashadaanna si gaar ah isugu xilqaanteen halka ka sii wada dardaarankii abwaaniinta iyo fanaaniinta soo bandhigeen waa la fuliyay dardaarankaas waa la taliyay waa la aqbalay waa la idinku xurmeeyay dad inta dhimana waa la gaarayaa guusheeda ilaahay iidankii kalsooni baana ku qabnaa mudane ra'iisul wasaare madaxweynayaal martida sharafta leh soo dhawaada waa mahadsantihiin weliba waxaan rabnaa inaad gurigiina sii joogtaan ku nagaataan haddaan u badano madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhu waa nala joogaya maalmaha waa hubaaye oo reer galmudug xiiso badan u qaba caawa inta ka muujiyeene madaxweynayaasha madaxweynihii hawl gaar ah oo degdeg ah yeeshaan fasaxayna inta kale waa noo sii joogayaan soo saas maaha
horta reer galmudug nabadda laguma xama jirin dadkay u nabad jecel yihiin madaxda sharafta leh horta ma laga qaada fariintaas habeen dhawada waxaan idhi reer galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen marka qaar waxay yiraahdeen ma waxaad ka wadaa waa is dhiibnay may beeraan falanaynaa saasa naga daacada yaambadaasa naga daacada meeshii wax ka adkaadaan waa baryaynaa oo u gurguranaynaa garkaan soo qabanaynaa soo ma waa maatantiin madaxa sharafta leh Allah ya isaga Allah ya sharfo guulaysta reer galmudugna waa mahad ballaaran baan idin celinayaa.